oofta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. Midda koowaad waxay ka timaadaa xagga bulshada waxaana loo yaqaanaa community acquired pneumonia waxaana keena bacteria caan oo loo yaqaano Streptococcus pneumoniae iyo weliba Klebsiella. Midda labaad waa midda ka timaada xagga isbitaalada ama xarumaha caafimaadka waxaana loo yaqaanaa hospital acquired pneumonia waxaana keena bacteria caan oo ay kala yihiin Staph aureus ama Staphylococcus aureus, Pseudomonas iyo weliba Escherichia coli. Labadan qaybood ee oofta loo qaybiyo labadooda waxaa lagu daweeyaa antibioticska gaar ahaan oral antibioticska sida Augmentin, Spectrum iyo weliba Amoxicillin iyo sidoo kale Ceftriaxone 1 gram IV injection oo dhamaantood qofka laga siinayo uu ka qaadanayo afka. Haddii uu afka qaadan waayana markaas xididka laga siinayo. Intaasi waxaa soo raaca haddii bukaanka uu leeyahay wax qandho ah waxaa la siinayaa dawooyinka qandho jabinta ama waxa la isku yiraahdo antibioticska. Sidoo kale haddii bukaanka uu markaasi uu leeyahay fuuqbax ama xaalad fuuqbax ay jirto waxaa muhiim ah bukaanka in lagu xiro faleembayaasha la isku dhaho IV fluidska ee markaa qofka u soo celinaya fuuqbaxii badnaa oo jirkiisa ka baxay. Sidoo kale bukaanka hadduu leeyahay naqaska ama naqaska uu dhibayo ama naqaska uu ku dhagayo sidoo kale waxaa muhiim ah in lagu xiro oxygen si naqaskiisii uu ugu soo laabto dabiici xaalad normal ah.